aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin dad ka soo qayb galay xafladan qiimaha badan ee maanta halka lagu qabtay sida ka muuqata gadaasheeda waxaa maanta halka lagu qabtay xaflad lagu kala seexanayo mashaariic fara badan oo ay kala seexanayaan dowladaha walaalaha ee Soomaaliya iyo Qatar mashaariicdan seexanay waxay u baday wax dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqo abuur waxbarasho waxyaalahaas oo dhan ka kooban yihiin haddii alla idmo lacag fara badan ayaan kala seexanay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa dhowaan waana bilowdan qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda Qatar ee mashruucan wada waxaa asaas u ah ugu horeysa hay-adan sanduuqa Qatar hay-adda waxbarashada education qof oo la yidhaahdo hay-adda Qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-adan shaqo abuurka Silatec iyo dhammaan hay-ado kale fara badan oo qaybka mashaariicdan laga fulinayo waddanka waana bilowdeen waana soconayaan insha Allah rajaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ku faa'iido doonaan wax badan noloshooda ka bedeli doonto. واليوم يصر صندوق قطر للتنمية أن يجدد تعهد دولة قطر في دعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع التنموية التي تهتم بالتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية، وذلك من خلال مشاريع تعليمية وإيجاد فرص عمل للشباب الصومالي، بالإضافة إلى مشاريع جوهرية ومهمة في الطرق بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي. أن اتفاقية الشراكة التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية بتوقعها اليوم مع الحكومة الصومالية تشمل مشاريع تنموية تتضمن مشاريع تنمية وإعادة تأهيل مباني حكومية، مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كيلومتر وطريق مقديشو أفوى بطول 30 كيلومتر، بالإضافة إلى دعم برامج التعليم في الصومال بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، مشروع تمكين الشباب وخلق فرص العمل عبر مبادرات تدريب مهنية وفنية في الحكومة وفي جميع الولايات الصومالية المختلفة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة سلتك. يأتي هذا التعهد ترجمة لالتزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الصومال حكومة وشعبا، ويساهم في ترسيخ العلاقات القطرية الصومالية التي كانت دائما وما تزال متميزة